halka aad nagala socotaan waa warbaahintii GS Media taariikhda miiraadigu waa 3 bisha tobnaad 2025 barnaamijkan qodobada aynu ku soo qaadan doono waxa idiin daadihinaya anigoo ah Ismaaciil Xirsi Cigaal dhinacan iyo Saylac ama galbeedka Soomaaliland waxa ka dhacay qalalaase ka bilaabmay kacdoon dhalinyaro maalintii shalay toole ahayd bal hadaba maanta maxay ku soo gabagabowday markii ay digniino fara badan ka bixiyeen gudidii gobolka oo uu hogaaminayo barasaabkii magaalada Saylac wayahay sidoo kale waxaynu soo qaadan doonaa siyaasadii kulmiye oo hadeer xaaladu car iyo car taagan tahay qodobada iyo qodobo kaleba waa soo qaadan doonaa barnaamijka share garee like tana saar hadii aanad hore ila joogin subscribe barnaamijka qodobada aynu ku soo qaadanayno waxa kamid ah dhinacan iyo galbeedka Soomaaliland waxa jira arrimo ka dhacay shalay toole magaalada Saylac oo ay hogaaminayeen dhalinyaro dalxiisayaal lagu tilmaamayay iyo kuwa ku qabsanaya xaflado kala duwan oo qaab dhaqan iyo beelaysi ahaa halkaas oo ay isku maandhaafeen dhalinyarooyinkii dalxiisayaasha u tagay iyadoo la sheegayo in ay qaar kamid ah kuba dhuumanayeen oo qalalaasaha gobolka Selel u bareersanaayeen iyo kuwa ku shiraya hoteelada magaalada qaar kamid ah iyadoo ay ku daafurayeen buugii loogu magac daray Xeer Ciise waxa jira hadaba dad siyaasiyiin ama dawladaha jaarka oo fursad qaali ah halka ka dhaxarkay mudana ay raadinayeen fursadda iyo sidii ay ku heli lahaayeen waxa hadaba maanta nabadgelyada gobolka la wareegay shantii nabadgelyada ee gobolka Selel oo hogaaminaya barasaabkii magaalada iyo janankii ciidanka booliiska gobolka Selel iyo shantii nabadgelyada dhamaantood waxa isla garteen in magaalada horta wixii aan u dhalan ee deegaankiisa ahayn laga saaro wixii hadal qaloocan yiraahana la qaban doono haduu oday dhaqameed yahay iyo hadii uu dhalinyaro yahay mid dalxiisaya iyo mid deegaanka kamidaba bal hadaba waxaanu halkan isku daawanaynaa digniinaha ay bixiyeen ciidanka nabadgelyada iyo barasaabku dadkaasina maanta halkayaan cadceed ugu dhicin ama oday noqo ama inaan noqo ama inaan noqo talaabo sharciga waa farsamada laga qaadaya gudiga nabadgelyada oo gudoominayo gudoomiyaha gobolka Selel kuna weheliyaan taliye ku-xigeenka labaad ee ciidanka booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo taliye gaaska saldhigga koowaad ee Soomaaliland ayaa shir jaraa'id ku qabtay xarunta gobolka Selel iyagoona uga digay shacabka ka kala yimid degmooyinka Soomaaliland inuu mid kastaba si nabadgelyo uga baxo degmada Saylac wayahay halka hadii aanu kaga nimaadno digniinaha ay bixiyeen amaba shanta nabadgelyada gobolka Selel go'aamada ay ka soo saareen in lagu sii joogi doono inay tahay arrimaha qodobada ay soo saareen in wixii qalalaase wada amaba aan gobolka deegaanka kamid ahayn laga saari doono si kasto ay ku soo galeenba waxa daba jirta dadkii beelaha isku dhacay ahaa ee Gadabiirsi iyo Ciise maxay kala taagan yihiin ugu horeyn waxa la isku qabtay waxay ahaayeen gobolka aniga leh imida garaadkiisu ilkaha u qorayo laba kalmadood baan ku sheegaya gobolka awda leeyahay ay am ana leh wallahi oo billahi oo tallaahi adiga malaha halkan ka taagantay inaanad ku raaxaysanayno dib uga hadli doonin xiniya haday kugu yaalaan nintahay saacada soo bilow oo keen arintaasina waxay noqotay mid waxba kama jiraan oo gobolka Selel la yiraahdo ay tahay geeska Afrika meelaha ugu taariikhda badan kana soo jeedaan dadka islaamka ugu badnaan meelihii ay ka ganacsan jireen ee kaga xidhnaan jireen badda iyadoo ilaa iyo qarnigii 7aad la sheegayo Soomaalida dhamaanteed inay halkaasi u ahayd caasimad ay dhoofitaanka iyo soo degitaanka iyo macaamilka dunida kaga xidhnayd halkaas oo ay tahay meel aan cidi sheegan karin ama asaaskeedii la garanayn sababtu tahay wax ka badan 9 qarni bay asaasnayd magaalada Saylac inta la garanayo waliba markaynu halka kaga nimaadno gobolkii Selel iyo sheegashada maanta waxa jirta fursado qaali ah oo Ismaaciil Cumar Geelle oo halka ka deeyay isagoo 300,000 oo laga soo raray dhinacan iyo canfarta iyo garba Ciise doonayay inuu ku deegaameeyo amaba arrimo xogaayo imika hadeer la soo bandhigay ay kamid ahayd in uu ilaa iyo gobolka Awdal iyo Selel wixii ka soo raaca uu ka dhigo state kamid ah Djibouti arrimahaas oo ku fashilmay hadeer sheegashada gobolka Selel arrimahaas oo hadeer ku fashilmay sheegashada gobolka Selel
waxa kale oo ay fursad qaali ah u tahay dhinaca Soomaaliya oo ka soo horjeeda horumarka siyaasadeed ee dhinaca Somaliland iyadoo oo lagu tuhmayo inay cidda ugu badan ee qalalaasaha gobolka Awdal iyo Selil ka wada ay tahay dhinacan iyo Soomaaliya oo lagu maalgelinayo dhalinyaro kala duwan oo waxyaabo fara badan ku metelaya hadii ay dalxiisayaal tahay hadii ay arrimo kala tahayba barnaamijkaasi wuxuu u eegyahay hadeer mid Somaliland iyadoo fahansan hadana ay dhex qaadayso qaabka markii hore loogu taageeri waayay iyadoo laga bedelay aragtiduna tahay imika in qaab qabaa'ilaysan ama beelaha halka wada yaala qaar kamid ah la isku dhufto wayahay halka adeenu ka nimaadno gobolkii Selil iyo nabadgelyada maanta iyo go'aamada laga soo saaray waxaynu u gudbinaa dhinacan iyo kulmiye iyo qaska siyaasadeed ee ka jira ugu horeyn horta dhinacan iyo kulmiye xeer hoosaadkii iyo qaynuunkii uu ku wada dhaqmi jiray hadii ay tahay xisbiga gudihiisa waa laga guuray oo waxa laga dhigay qaab qabaa'ilaysan sulaadiin iyo boqorro isu jawaabaya maanta go'aanka maanta xisbigana aad moodaaba inay ku dhiiran yihiin waxa jirta markaa qaabka qabaa'ilaysan iyadoo la kala sheeganayo xisbigii kulmiye haddana waxa jirta in aan wali sharcigii laga tegin oo la doonayo in ilaa heer maxkamadeed la isla socdo waxay khilaafkaasi dibadda u soo baxay kadib markii 3 shir la isugu yimid 3 shirna lagu heshiin waayay hadeerna waxa jira xubno aad ugu dhiiran wax ka sheega dadka iyo go'aamada ay ka soo saarayaan xisbiga kulmiye iyadoo ay ka madax banaan yihiin hadana gudida iyo golaha dhexba iyo madaxda hogaamisa xisbiga waxay noqon kartaa taasi inaanay u eekayn mid ay siyaasadiisa go'aamin karaanba gudida maanta kulmiye ee ay faraha ka baxday barnaamijka halkaas ay ku soo gabagabeynaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay maca salaama waa waqti gelin dambe oo jimce sii baxayo nabiga aynu ku sallallahu alayhi salaatu wasalaam